calaykum. Koorsadan waxaa la yiraahdaa First Aid oo Soomaali ahaan noqonaysa gargaarka degdega ah. Waa koorso life saving ah inuu barto si uu naf u badbaadiyo. Waxaa lagu qaataa facultieska caafimaadka, sidoo kale waxaa lagu bartaa xarumo kale sida xarunta Bisha Cas iyo colleges kale oo waxaa jira ku bixiya certificate. Waa maado practical iyo theory labadaba ka kooban. Channelkeena waxaan kusoo gudbin doonaa qaybta theory-ga annaga oo sharxayna procedureska sida loo sameeyo. Marka qofka waxaa laga rabaa in uu marka uu fahmo procedureka iyo sida loo sameynayo uu practicalka raadsado haddii uu goob caafimaad ka heli karo iyo haddii meel kale uu ka baran lahaaba. Casharkan waa casharka koowaad chapter 1 waxaan ku qaadan doonaa introduction to first aid oo ah hordhaca first aid-ka. Isla casharka gudihiisa waxaan ku arki doonaa definition-ka iyo qeexitaanka first aid maxaa loo yaqaanaa. Qodobka labaad waxaan arki doonaa purpose-ka iyo danta loo sameeyo first aid-ka. Qodobka saddexaad waxaan arki doonaa steps in giving emergency care, stepska iyo tallaabooyinka la qaado marka qofka la siinayo gargaar caafimaad oo degdeg ah. Qodobka afraad waxaan ku arki doonaa role of first aider, qofka first aider-ka roolkiisa iyo shaqadiisa. Qodobka shanaad waxaan arki doonaa qualities of good first aider. Qodobka lixaad waxaan arki doonaa common emergency caseska ama caseska loo sameeyo first aid-ka kuwooda ugu badan. Iyo qodobka ugu dambeeya oo aan ku arki doono waxyaabaha loo ogol yahay qofka first aid-ka inuu sameeyo iyo waxyaabaha aan loo ogoleen. So what's first aid? First aid maxaa loo yaqaanaa? Definition-kan ku hormarayna. First aid is the treatment given when an accident or sudden illness occurs or immediate care given to a person who has been injured until he or she taken to health facility. First aid waxaa loo yaqaanaa waa daaweynta koobaad, waa wuxuu qabashada koobaad kaas oo loo fidiyo qof bukaan ah marka uu dhaco accident. Yani accidentigu wuxuu noqon karaa car accidentigi, wuxuu noqon karaa qofkii meesha kasoo dhacay, wuxuu noqon karaa shilalkii noocyadooda kala duwanaa. Or amase accidenti qofkii kuma dhicin sudden illness kaas qofkii waxa kusoo booday xanuun degdeg ah. Tusaale ahaan oo kale qofkii hal mar baa naqaska qabtay, qofkii hal mar baa waxaa dhacday in neefta ay ku dhegtay. Soo gargaarka caafimaad ee ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee loo sameeyo qof bukaan ah kaasoo ama accidenti galay ama xanuun degdega uu kusoo booday ayaa loo yaqaanaa first aid. Si guud first aid-ku wuxuu ka shaqeeyaa ama procedurada first aid-ka waxaa loo adeegsadaa waa pre-hospital procedures, yacni waa proceduro isbitaalka ka hor qofka loo sameeyo. Yacni waa bridge u dhexeeya isbitaalkii iyo yacni qofkii ay wax soo gaarayaan. Qofkii wax soo gaareen waa in wax loo soo qabtaa intaan isbitaalku soo gaarsan. So first aid-ku hada jeer wuxuu ku tacalluqaa waa pre-hospital. Some procedures sida CPR oo kale way jiraan oo isbitaalka gudihiisana lagu sameeyo, laakiin inta badan waxaa loo adeegsadaa isbitaalka banaankiisa. Sidoo kale waxaan dhihi karnaa waa immediate care given to a person who has been injured. Waa gargaar degdeg ah, immediate waa care iyo xanaanad degdeg ah taasoo la siiyo qof bukaan ah oo dhaawacmay. Waa goorta la siinaya until he or she taken to health facility. Ilaa qofkaas rag iyo dumar wuxuu doona ha ahaadee laga geynayo xarun caafimaad. Yani sida soo sheegnay waxaan dhahnay waa xarunta caafimaadka wixii ka horeeya ayaa qofka wax loogu soo qabtaa. Soo gargaarkaas uu qofku u baahan yahay iyo xanaaneyntaas iyo wuxuu qabashadaas inta xarun caafimaad laga geynayo qofka loo qabto ayaa loo yaqaanaa first aid. Another definition wuxuu in leeyahay first aid is the initial treatment or help given to a sick, particularly injured individual before professional medical care becomes available. Wuxuu leeyahay waa treatmentiga koobaad, waa wuxuu qabashada koobaad, waa caawinaada koobaad oo la siiyo qof bukaan ah gaar ahaan qof dhaawacmay. Goorma waa goorta la siinayo before professional medical care becomes available. Inta uusan qofkaas helin gargaar caafimaad ama inta aan la geyn qofkaas goob caafimaad. So intaas waxaan uga tegi doonaa qeexitaanka first aid. Who is marka first aider? First aider waxaa loo yaqaanaa qofka first aid ka sameeya, yani qofka trainingka first aid ka qaatay isla markaana gargaarka degdega u sameeya dadka ay wax ku dhacaan ayaa loo yaqaanaa first aider. So first aider is a person who has been trained to give immediate temporary care. First aid waa qof kaasoo loo train gareeyay, kaasoo loo tababaray oo aqoonteeda loo baray, aqoonta first aid-ka la baray in uu dadka siiyo ama dadka u qabto immediate temporary care.
care degdeg xanaaneyn iyo wuxuu qabasho degdega taasoo ah temporary. Yani temporary waxaa loo leeyahay inta badan first aidka wixii banaanka qofka loogu soo qabto intaas qofka laguma daayay goobta caafimaadka markii la geeyo qofka waxbaa loo soo qabtaa. Tusaale ahaan qofka uu dhiig baxayay dhiig joojin baa banaanka loogu soo sameeyey, tusaale ahaan bandage oo kale lagu soo xiray ama maro oo kale qofka adeegsado oo kusoo xiray. Goobta caafimaadka markii la geeyo waxaa lagu sameeyaa yani in la furo nabarkii oo dib loo eego dib loo hagaajiyo. So what temporary care marka to someone who is injured or suddenly becomes ill. Waxaa loo sameeyaa marka immediate care kaas temporary-ga ah qof dhaawacmay ama qof uu kusoo booday xanuun. Yani si suddenly qof u xanuunsaday until professional medical help is available. Ilaa qofkaas uu ka helayo gargaar caafimaad oo isaga ku filan. Yani gargaar caafimaad noocii uu u baahnaa ilaa uu ka helayo qofka saaq dadka u soo caawiya oo gargaarka u soo sameeya ayaa loo yaqaanaa first aider. Purpose of first aid treatment. Haddaba danta loo sameeyaa maxay tahay? Aimka laga leeyahay in first aid la sameeyaa maxay tahay? Qodobka koowaad to keep the injured or ill person alive. Waa in laga dhigo ama la sameeyo qofkii dhaawacmay ama qofkii xanuustay in xaaladiisa caafimaad ay sii socto, inuu alive sii ahaado, inuu noloshiisa qofkii uu sii wato. Marka tusaale ahaan oo kale qofkii dhaawac baa gaaray waa dhiig baxaya. Haddii dhiig baxa qofka aan la joojin waxaa imaan lahaa qofku in uu dhiig baxa uu dhinto. Dhimashada iyo noloshaba Allah haya, laakiin waa sida saxda ama sida aan wada naqaano. Sidoo kale to prevent the injured condition from becoming worse. Wuxuu kale uu qabtaa qofka first aidka ama first aidku wuxuu kale ka shaqeeyaa in laga hortago dhaawac ama xaalad inay ka sii darto, xaalad inay sii darso. Tusaale ahaan oo kale qofku wuu jabay, gacantoo kale ka jabay ama lugtoo kale ka jabay. Laftu markay jabto waxaa dhacda in ay dhaawacdo neerfayaashii iyo xididadii dhiigga. Marka qaabka loo xiro fracture-ka ama jabka loo xiraayay waa qaab ka hortaga in ay lafti dhaawacdo xididadaas. Waxaa laga hortagaa lafti inay dhaawac further injury yani inay sii geysato. Qodobka saddexaad to help him or her to recover and to sustain life. Waa in lagu caawiyo qofka rag iyo dumar wuxuu doona ha ahaaday recovery inuu sameeyo, soo roonaansho, soo fiicnaansho. Tusaale ahaan qofkii naqaskii baa qabtay. Haddii qofkii marka naqaska uu qabtay oo kale ama artificial respiration loo sameeyay ama wadnaha oo kale istaagay oo qofka CPR oo kale lagu soo caawiyay, yani waxaa laga qayb qaatay ama first aid waxay ka qayb qaadatay qofkaas recovery inuu sameeyo and to sustain life, noloshiisa uu sii wato, yani recovery ka sameeyo xaaladii kusoo bootay. Si guud marka haddaad dul maro aimka loo sameeyo first aid oo dhan waa in nolol la badbaadiyo, waa in naf la badbaadiyo. Steps in giving emergency care. Haddaba stepska iyo tallaabooyinka la qaado marka la bixinayo emergency care. Qodobka koowaad look at the general situation of the consult quickly. Wax samayn doontaa inaad eegtid dhammaan xaaladda qofka bukaanka, horta inaad qiimeyso qofka xaaladiisu sideeta. Qodobka labaad decide what's wrong and how severe or dangerous the injury. Sidoo kale go'aami qofka maxaa ka khaldan, yani qofka maxaa ku dhacay. Tusaale ahaan qofka meel buu ka soo dhacay, qofka naqaska ku dhagan, yani qofka ma dhiig baxaya, qofka waxbuu ku margaday, yani qofka waxa ku dhacay inaad garatid. Sidoo kale isla waqtigaas waxaa laga rabaa xaaladan ku dhacday xaalad severe ah mise xaalad iska yani xaalad la difan oo normal ah. Xaaladda qofka waa inaad qiimeyn karto. Waxaan soo dhahnay in xaaladda guud oo bukaanka aad qiimeysid si degdeg ah. Qodobka labaad qofka waxa ku dhacay inaad si sax u ogaato qofka maxaa ku dhacay, xaaladiisu ma daran tahay mise ma darna inaad ogaato. Qodobka saddexaad give the appropriate first aid. First aidka ku habboon sii qofka weliba si degdeg ah ayaa laga rabaa inaad u siisid. Midda ku habboon maxay noqon kartaa? Tusaale ahaan qofku waxa ku dhacay waa qof meel ka soo dhaco kale ama qof shil kale oo kale uu dhiig baxaya. First aid ku habboon waa inaad dhiigga joojisid. Qofka naqaskii baa ku dhagay waa inaad naqas siisaa. Qofkii waxaa istaagay wadnihiisa waa shaqada jooji waa in CPR loo sameeyo. Yani first aidka ku habboon waa inaad u samayso. Qodobka afraad notify your senior and arrange transport to hospital or health center. Waxaa laga rabaa marka inaad sameysid notify your senior. Seniorka wuxuu noqon karaa inaad ogeysiisid qof kale oo kale ama qof kula jooga ama qof kaaga khibrad badan oo kale ama qof goob caafimaad jooga oo kale inaad telefoon u dirtid oo aad la kaashatid xaaladii. Sidoo kale waxaa laga rabaa
inaad ka shaqayso sida ugu dhaqsiyaha badan qofkaas inaad u geyso xarun caafimaad. Yani haddii aad ambulance wacan karto kale inaad wacdid, haddii gaari kale aad heli karto kale gaarigaas kale inaad wacdid, sidii qofkaas aad xarun caafimaad u geyn lahayd waa inaad ka shaqaysaa. qodobka shanaad give follow up care during journey. waxaa laga rabaa xilliga safarka kusii jirtaan oo qofka yani aad xarunta caafimaad usii wadid inaad samaysid follow up care oo ahaa keerka marka hore qofka u sameynaysa. tusaale ahaan marka hore qofka hawaa siinaysa ama CPR baa u sameynaysa ama procedure kale u wada, yani waxaa laga rabaa procedureka inaad joojine aad sii wadid oo sii samaysid ilaa qofka inta laga geynayo xarunta caafimaadka. the first aiders role. haddaba first aid roolkooda iyo shaqadooda maxay tahay? kow, provide immediate care. waa in ay bixiyaan gargaar degdeg ah, inay bixiyaan xanaaneyn iyo wax u qabasho degdeg ah inay qof bukaan u fidiyaan wey. qodobka labaad, reassure and comfort the patient. waa inay bukaanka xaaladiisa qiimeeyaan isla markaasna xaaladda bukaanka comfort inuu dareemo, yacni ay dejiyaan. qodobka saddexaad, call for professional help. waa inay u wacaan qof bukaanka caawiyeen. ama professional help wuxuu noqon doonaa isbitaalkii oo kale, wuxuu noqon karaa ambalaastii oo kale, wuxuu noqon karaa tiim yani caafimaad oo asaga uga khibrad badan oo kale. sidoo kale qodobka afraad oo muhiimka asana waxa weeye preventive harm. inay kasii hortagaan dhaawac inuu sii darsado qofka wax gaaray inuu sii darsato xaaladda bukaanku waa inay ka hortagaan. qualities of a good first aider. haddaba waxyaabaha looga baahan yahay qofka first aiderka ah oo wanaagsan, kow horta calm and confident. qof waa inuu ahaada qof degan sidoo kale confident dareemaya, yani kalsooni dareemaya. tani maxay ka qayb qaadanaysaa? tani waxay ka qayb qaadanaysaa qofku haddii uusan deganayn inuu khaladaad badan qofka bukaanka u geysan karo oo qofka bukaanka dhibaateyn karo halkii uu ka caawin lahaa. inta badanna markii meelo ay ka dhacaan xaalado yani accident oo kale ah ama xaalad qarax oo kale iyo wixii la macno ah, dadku waxay dareemaan xaalad stressful ah. marka qofkii isagoo stressful dareemayo oo aad u walwalsan waxaa laga yaabaa qofka bukaanka ah inuu dhibaato u geysto. qodobka labaad, waxaa laga rabaa quick decision making. inuu si degdeg ah qofku uu u qaadan karo, uu go-aan u qaadan karo, isla markaasna quick action uu sameyn karo. quick decision making markuu sameeyo, tusaale ahaan qofka wuxuu arkay in qofka naqas ku dhegan yahay oo kale, yani waa decision making uu sameyn waa in qofkaas artificial respiration oo kale uu sameeyo. actionka uu sameynayana waa inuu sameeyo isla procedurkii waa inuu gudagalaa. sidoo kale knowledgeable and skilled qofku waa inuu yahay, waa qof aqoon u leh, sidoo kale xirfad ahaanna ka dhisan waa inuu yahay. oo qofku wuxuusan aqoon u lahayn qofka uma samayn karo, qofku ku dhibaateynaya. qodobka u dambeeya compassionate and supportive. waa inuu yahay qofkaasi qof showed empathy, qof yani qofka si naxariis leh ula hadli karo kale. tusaale ahaan mararka qaar wuxuu u baahan yahay qofku markuu ku dhaco kale, shilkoo kale markuu galo oo kale in la dejiyo, dejin buu u baahan yahay, yani inuu dejin karo oo si gently ah uu ula hadli karo oo u dhigi karo waxaana kugu dhacay saan wey, xaaladaada way fiican tahay, waa fiicnaan doontaa, saana noqon doonta iyo wixii lamid ah. common emergencies of first aid. haddaba keesaskani waa keesaska commonka ah ee dhaca mar walba u baahdo in first aid loo sameeyo. number 1 waxaa kamid ah bleed, qof dhiig baxaya. nambarka labaad burns, gubashooyinku meelo badan bay ka dhacaan, guryahay ka dhacaan, goobaha caafimaadkay ka dhacaan, waxay ka dhacaan goobaha waxbarashaday ka dhacaan, meelo badan bay ka dhacaan. fractures baa kamid ah ama jabkii lafaha soo gaarayay, laftii doonta ha ahaato. chokinkii baa kamid ah oo loo yaqaano margasho, qofkii inay wax ku margadaan, wax ku istaagaan. faintingka kamid ah keesaska commonka ku ah oo u baahda first aidka oo ah dhicitaankii qofkii. so faintingku inta badan wuu ka duwan yahay, seizureka wuu ka duwan yahay, oo qofkii dhicitaan inuu ku imaado oo qofku istaag ka dhaco. haddaba dus in first aidka waxyaabaha la sameynayo, qofka first aidka waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo. kow horta waxaa looga baahan yahay stay calm, qofku inuu ahaado qof degan. your confidence reassures the patient and helps others. yani deganaanshahaga iyo confidencega adigu aad dareemaysaa wuxuu caawin doonaa bukaanka iyo dadka kaleba ku caawin doontaa haddaad degan tahay. oo qofku hadduu yahay qof degan, qofka first aiderkaahi wuxuu sameyn karaa procedure badan iyuu sameyn karaa, wuxuuna caawin karaa 1 qof iyo 2 qof iyo ka badan buu caawin karaa. qodobka labaad, check for danger. waa inaad jeegaraysaa dangerka, waxyaalaha dangerka ah, inaad yani waxyaalaha khatarta ah oo environmentka ka jira waa inaad iska jeegaraysaa. mar walba markaad qof badbaadinaysa, badbaadada koowaad naftaadaa lagaa raba.
يعني adigu haddaada badbaadin waxba ma badbaadin kartid. So kow waa inaa hubisaa marka ensure the scan is safe before approach. Intaad approach garaynin oo qofka wax u qaban waa inaa iska hubisaa environmentiga. يعني environmentiga waa meel dab u haysto kale ama electricity koronta ka jirto kale yani meesha dhibka ka jira waa inaa iska hubisaa kale. qodobka xiga call for professional help. ambulance noqon kartaa waxay noqon karaan tiim caafimaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad u wacdid goobta caafimaadka ama waa inaad u wacdid ambulance hadaad helisid si qofkaas aad u geysid goob caafimaad. qodobka ku xiga use protective equipment. personal protective equipment waxaa loo yaqaanaa PPE baa loo yaqaanaa. so PPE gaasu waa waxyaabaha qofka caafimaadkiisa ilaaliya. qofka first aiderka caafimaadkiisa waxyaabaha ilaaliya wixii uu ka heli karo qofka waa inuu isticmaala sida gloves oo kale waa inuu isticmaalaa mask oo kale waa inuu isticmaala waa hadduu heli karo way hadduusan heli karin laguguma xirayo waa khasab inaad qofka u samayso first aid kasoo adoo glove haysan ba waxaad qofka u dhiig waxay waxaad inaad dhiig joojin u samaysid khasab inaad u samaysid baa laga rabaa. if available to prevent infection haddii uu helayo weeye personal protective equipment hadduu helayo uu isticmaalaya qofka haddii uu waayana laasim waa inuu qofka caawiyo sababto qof dhan naftiisu badbaadinayo. qodobka xiga give basic life support. waa inuu yahay qof first aiderka qof bixin kara ama samayn kara basic life support waxa loo yaqaano sida CPR oo kale sida control breathing oo kale dhiig bixi oo kale inuu joojiyo chief airway clear oo kale airway difaac oo kale inuu nadiifin karo oo mid clear ah oo hawo qaado oo fadhiyo karo. qodobka xiga wuxuu place unconscious but breathing patients in comfortable position. waa inaad u jiifisaa oo u dhigtid qofka unconsciouska qofka miir qabin laakiin breathingkiisu uu fiican yahay recovery position. recovery position waa position qofka loo jiifiyo oo qofka dhinaca bidix loo jiifinayo labada gacmood mid loo soo laabayo midaan kalena jirka ay ka koreyso baadkaas waa loo jiifiyo. qodobka u dambeeya wuxuu ku dhahay monitor vital signs and field medical health times. wuxuu ku dhahay waa inaad monitor garaysaa oo ka warhaysaa oo samaysaa vital signska intii qofku uu ka helayo gargaar caafimaad ama intii qofku gargaar caafimaad ay uga imaanayo. vital signskaas marka haddii aad qalab haysan maxaa cabiri karta kuwaa cabiri kartid baa jira adoo qalab haysan waxaa ka mid ah pulse rate oo kale ama inaad cabirto wadna garaaca qofkoo kale adoo adeegsanaya farahaaga oo kale baalbeed bareenaya saacadaada ama mobilkaaga waxa haystana ka tirsan doono iyo sidoo kale respiratory rate qofkana uu cabiri kartaa oo ah neefsashada sida ay tahay. okay don'ts in first aid waxyaabaha aan loo ogoleyn qof first aid inuu sameeyo. qodob koowaad don't panic. qofka argagix qof waxaa rabaa inuusan argagixin oo cabsanin oo qofka waxaa dhahnay haddii uu cabsanayo cidda kuma samayn karo. it delays action and frightens the patient. panicka ama argagax wuxuu keeni doonaa qofku inay dib u dhacdo actionka uu samayn lahayo yani qofkii bukaanka wuxuu u qaban lahaa inay dib u dhacdo sidoo kalena uu cabsi geliyo bukaanka laftigiisana uu cabsi geliyo. So don't move a seriously injured patient unnecessarily, especially with structural fractures and spinal injuries. wuxuu dhahay ha u dhaqaajinin bukaanka sida xun u dhaawacmay si aan saxnayn ha u dhaqaajin. gaar ahaan waxaa ka mid ah dadka looga shakisan yahay fractureska inay tahay qofka lafuhu ay jajaban yihiin oo kale laga shakisan yahay inuu jab jirkiisa uu jiro kale haddii si aan saxnayn loo qaado ama loo dhaqaajiyo waxaa ka dhasha further injury qofka inuu sii gaaro ama dhaawacii uu sii bato gaar ahaan spinal injury qofka dhabarka ama laf dhabarka uu dhaawac ka soo gaaro. sidoo kale don't give food or drink for unconscious or subconscious person risk of choking. wuxuu afka ha ka siinin cunto ama cabitaan qof aan miir qabin ama qof miirkiisa uusan fiicneen taas oo risk u gelin doonta qofka inuu saxdo ama qofku wixii inay aspiration ku sameeyaan yani qofku markuu isagoo miir qabin afka wax laga siiyo waxaa dhaca waxa loo yaqaano aspiration oo ah cuntadii ama cabitaankii halka in gurigii cuntada ka aadi lahayn inay guriga kale qayb ka mida ay gasho oo halkaasna qofkii dhib uga imaado. sidoo kale wuxuu ku dhahay don't leave the patient alone unless you must get help. ha ka tegin bukaanka keligiis ilaa uu qofku helo qofka caawiya. sidoo kale wuxuu ku dhahay don't remove deeply embedded objects knife
knife class oo kala kamid tusaale wuxuu ku dhahay ha ka saarin qofka haddii uu ku mudan yihiin deeply embedded shayga deeply ah oo jirka aad ugu mudan tusaale qofka qaata toorey ee caloosh kaga jirto oo kale midi qofka ay meel ka taagan tahay oo kale qof galaas ama wax loo yaqaan dhalo ay gashay oo kale ku taaganta ku jirto oo kale adiga soo bixin adiga first aid tahay laguma talagelin inaad soo bixisid. Just stabilize and wait for professionals. waxaad samayn kartaa oo kuu banaan adigu inaad samaysid bukaanka inaad stabilize garaysid oo wixii kale aad u samayn kartid u samaysid shaygaa meesha ka taaganna aad la sugtid ama aad u geysid goobta caafimaadka sababtoo dadka caafimaadku iyagaa garanaya shaygaan meesha ku jiro istructurada ku jira waxyaabaha la iska ilaalinaya hadday yihiin nerves hadday yihiin blood vessels waxyaabahaas oo dhan iyagaa garanaya laakiin adigu waxaa dhici karta inaadan istructurada jirka si fiican u kala garanayn as a first aider kadibna mididii aad kusoo jiido qofkii dhaawac siyaadana aad u sifaysid. sidoo kale wuxuu ku dhahay don't apply home remedies like powder, oil or toothpaste or balms. ha ku apply garaan oo ha saarin oo ha marinin qofka gutay waxyaabahan soo socda sida batirka oo kale subagga oo kale dufanka oo kale oilka oo kale saliidaha noocyada saliidaha oo kale duwan oo kale toothpaste oo loo yaqaano daawada xadayga ama colgate oo kale dadka gutay waxyaabahaas waa in aan ku samayn marka aad tahay first aid waxyaalaha inuu badan oo la sameeyo waxaa dhacda waxyaabahaas qofka inay u sahlaan maadaama qofka jirkiisa uu gubtay oo uu furan yahay infectionka inay u sahlaan sababtoo ah badidoodu sterile ma aha bacteria la socoto marka meesha la mariyo waxaa dhacda in meesha infected noqoto. sidoo kale don't attempt procedures you are not training. ha ka qayb qaadanin oo ha sameynin borosijirada aan lagu tababarin borosijirada aad tababarkooda haysanin ha qabanin oo faraha ha la gelin haddaad la gashinna dhib baa kaaga imaan doona. wabillahi tawfiiq.